Assalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay muuqaal dhex wareegayay baraha bulshada. Waxa aan la yaabay ayaa ah muuqaalkan waxaa hadal haya dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed. Haddaa fiiriso postiyada, kommentiyada iyaga haysta. Haddaba muuqaalkani muxuu yahay? Muuqaalkani waxa weeye kan haddaba aan kaa dabageeyo sheekada. Wiilkan waxaa lagu magacaabaa Harry Cameron. Waa 21 sano jir, u dhashay wadanka Mareykanka. Waana wiilka wejiga quruxda badan leh oo u eg weji aan waxba samayn. Muuqaalkiisu waxa uu qabsaday aaladda TikTok. Haddaba wiilkan da'da yar waxaa lagu xukumay xabsi muddo 24 sannadood ah, waxaana uu jeelka liinta uu ku cabi doonaa in ka badan intii uu ku qaatay jeelka dibadiisa. Sababta xabsigiisa ayaa ah dilka uu dilay hooyo iyo ilmaheeda yar oo jirtay 1 sano oo kaliya, isagoo weliba ku dilay sabab nacasnimo ah. Waxayna dhalisay arrintani muran iyo dood badan baraha bulshada dhexdooda. Qisadan waxay bilaabmatay markii isaga iyo wiil ay saaxiibo ahaayeen oo la yiraahdo John Branio ay go'aansadeen inay ku dhex tartamaan oo ay ku baratamaan mid ka mid ah wadooyinka ku dhex yaala magaalada Tampa ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Tartankan waxa uu ahaa mid sharci darro ah, maadaama tartamada baabuurtu ay leeyihiin wadooyin lagu talagalay oo gaar ah. Haddaba labadan wiil waxay sameeyeen qalad weyn, maadaama ay ku dhex qabsadeen tartanka wadooyinka dadweynaha iyo gaadiidka caadiga ah ay dhex maraan. Haddaba wiilkan Harry waxa uu ka qayb galay tartanka sharci darrada ah, waxaana uu maalinta uu shilka galayay ahaa mid wata baabuur noociisu yahay Ford, midabkiisuna yahay madow, halka uu saaxiibkiina watay baabuur Nissan ah, midabkiisuna yahay dahabi. Waxayna soo gaareen mid ka mid ah ishaarooyinka ku yaal wadada. Markii ishaaro noqotay, akhtarna waxay gaariga ku dhaqaajiyeen xawaare aad u sareeya, isla markaana dhinaca kale ee wadada waxa marayay hooyo lagu magacaabo Jessica iyo ilmaheeda yar oo lagu magacaabo Lilia oo jirta 1 sano oo marayay isla wadadan. Hooyadu waxay ahayd mid ku wada gaariga carruurta ilmaheeda yar. In yar kadib, labadii gaari oo xawaare sare ku socda ayaa soo gaaray meeshii ay marayeen hooyada iyo ilmaheeda yari. Haddaba Harry ayaa xakameyn kari waayay baabuurkiisa, halka wiilkii kale ee saaxiibkii ahaa uu ka leexiyay gaariga wadada. Laakiin Harry waxa uu leexin kari waayay baabuurkiisii, waxaana uu jiiray ama uu duqeeyay hooyadii iyo ilmaheedii yaraa, taasoo sababtay inay isla bartaa ku dhintaan. Waxaana uu dalbaday gabadha ninkeedii in wiilkan dilay xaaskiisa iyo ilmihiisa yar la marsiiyo ciqaabta ugu adag. Isla sidii uu ninku dalbaday ayaa dhacday oo waa laga aqbalay dalabkiisa. Haddaba Harry waxaa lagu xukumay xabsi 24 sano ah, halka saaxiibkii lagu xukumay 6 sannadood oo xadhig ah. Haddaba arrinka muranka keenay baraha bulshada dhexdooda waa muuqaal laga duubay markii la maxkamadeynayay Harry iyo sida uu uga falceliyay markii uu maqlay xukunka lagu riday. Harry waxa uu sameeyay in dhammaan shucuurtiisa muujiyo iyo in uu indhaha aad u kala qaado, kaasoo muujinaysa naxdinta uu ka qaaday xukunka. Waxa uu sheegay qaadigii xukunka riday in sababta uu ugu adkeeyay wiilkan xukunka in ay tahay in uu falal hore ugu geystay, waxaana hore lagu haystay arrimo sharci darro ah oo la xiriira tartamadan aan sharciga ahayn iyo xawaaraha sare ee ku wadi jiray gaariga laga soo bilaabo markii uu qaatay liisanka darawalnimada. Waxaana uu sheegay qaadigani in uu u sameeyay sidan in wiil kasta oo sidan sameeya ay cashar u noqoto. Haddaba Harry hooyadii ayaa sheegtay in dhowr jeer ay isku dayday in ay joojiso wiilkeeda oo uu dhimo xawaaraha uu ku wado baabuurka. Waxayna sheegtay in markasta ay dareento naxdin iyo cabsi markastoo ay aragto wiilkeeda oo ku jira xaaladan. Waxayna sheegtay in ay jeclaan lahayd in ay gasho booska wiilkeeda si ay uga qaato xukunka, yacni in iyada lagu bedelo. Hooyo waa hooyo, meel kastay joogto, ama Muslim ha noqoto ama gaal ha noqoto, waa sida ay tahay. Sidoo kale Harry waxaa la socday maalinta uu shilku dhacayay walaalkii, oo ay hooyadu sheegtay in uu maalinta uu show ka qaaday shilka. Waxa kale oo uu sheegay qaadigu in markii uu shilka galay Harry uu ahaa mid da'diisu yar tahay, sidaa darteedna dib loogu dhigay si loogu xukumo xukunka qaangaadhka. Haddaba dhacdani waxay dhacday sanadii 2018. Haddaba aynu yar eegno dhowr kumandiis oo hablo badan oo Soomaaliya ay ka bixiyeen wiilkan.
gabadh baa soo qortay alla yaa kun wiil oo Soomaaliya ku bedela halkiisa uma qalmo in 1 minute uu gala xabsiye. Hey, y'all, come look at this. waa kaligiis nin waxaan jeclaan lahaa booskiisa in lagu bedelo 100 wiil Soomaaliya lagu bedelo indhihiisa ay deeqay. mid kale waxay tiri 4 wiil oo Soomaaliya xabsiga hala geeyo isagana hana loo soo daayo la'aantiis abaar. mid kale tiri islaantii aad ku waalateen eheeda sida idiin tahay uu annagana noo yahay. mid waxa soo qortay mid baa caawa igu tiri allow yaa kastuumadiisa iga dhiga adna kan yar bay kaga cad tahay inaad diraacow. mid kale soo qortay walaal farxaan diraacow bedelkiisa adiga xabsiga gal si loo soo saaro wiilkan quruxda lowga ah. والله مو قال ما فريلا سنة حبسة عندي سكرية درين صعداء فرح صوماليا اللي بدرت شعرها. يا يرى هذا حبسة يلقى الأفريلا تسنة ويرتهي حتى بقول سنة ولا ربي لها. دلوقتي مت خلاص أغرتي إذن كوبا حبر تنبات أسبوع لنو ساعة تمسين. ciyaartu waa baraajo. Hey, y'all, come look at this. gabadh ugu tarnayd waxay soo qortay commentigan waxay tiri ninkan naago waan isla leenahay maxay tahay naagaha koorida u sheeganaya. mid kale waxay tiri quruxdiisa marka aragto waxaad ku matalaysaa ruux laga abuuray biyaha jannada. mid kale waxay tiri waa ninkii aan nada uga ciil bixi lahayn haddaa ciil tira maqashay waa kan. mid kale soo wata xabsiga uma qalantid